kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad nagala socotaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Israa'iil iyo Falastiin gaar ahaan marinka Gaza iyadoo lagu soo waramayo Israa'iil in jab weyn ay kala kulantay duullaankan cusub ay ku qaaday Gaza. ururka Xamaas ee ku sugan magaalada Gaza ayaa sheegay inay qabsadeen maxaabiis u dhalatay Israa'iil oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ila ka tirsan garabka Al-Qassam ayaa telefishinka Al Jazeera u sheegay in saraakiisha la qabtay ay ku jiraan saraakiil ka arrimiya koonfurta dhinaca iyo Gaza waxa ka mid ah taliyihii qaybta Gaza. ururka Xamaas ayaa sheegay in maxaabiista ay qabsadeen inay bilow u tahay sidii ay ugu gorgortami lahaayeen isla markaana ay ugu bedelan lahaayeen maxaabiista faraha badan ee Falastiiniyiinta muddo dheer laga haystay taasoo horseed u noqon doonta in la sii daayo dhammaan maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira gacanta Israa'iil. Xamaas maalintii labaad ayaa weerar culus waxay ka wadaa marinka Gaza. dhinaca Israa'iilna waxa ku dhacay in ka badan 5,000 oo gantaalo iyo madaafiic ah oo lala beegsaday goobo muhiim ah. weerarka Xamaas ayaa galay maalintii labaad waxaana Israa'iiliyiintu ay sheegayaan in ka badan 300 oo Israa'iiliyiin ah in ay dhinteen. meydadka ayaa waxay daadsan yihiin wadooyinka. dhanka kale ugu yaraan 314 Falastiiniyiin ah ayaa dhintay in ka badan 1700 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymaha Israa'iil ay ka wado dhulka la go'doomiyay ee ku yaala Gaza. weerarada Israa'iil ayaa waxa ay dhulka ku sameeyeen goobo muhiim ah, tusaale ahaan dhismo ka kooban 14 dabaq ayaa la sheegayaa in ay Israa'iiliyiintu ay burburiyeen halkaasi oo ay sheegeen inay ku yaalaan xafiisyada Xamaas ee magaalada Gaza. ciidamada Israa'iil waxay sheegeen in ay weerareen guriga madaxa sirdoonka Xamaas. Israa'iil ayaa wali waxay ka wadaa dhinaca koonfurta Lubnaan weeraro xagga cirka iyadoo lala beegsaday saldhigyo ay joogeen kooxda Xisbullah. marinka Gaza waxa ku nool 2.3 milyan oo Falastiiniyiin ah kuwaas oo xalay cabsi iyo mugdi galay iyadoo Israa'iil ay xoojisay weerarada xagga cirka isla markaana ay jartay korontadii la siinayay dadka ku nool marinka Gaza. guutada Qassam ee Xamaas ayaa sheegtay in dagaalyahanadooda ay wali ku jiraan iska caabin magaalooyin ku yaala Gaza. ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa saxaafadda isna la hadlay waxa uu sheegay in ay markaasi gudan doonaan. Israa'iiliyiintu waxa la sheegayaa in ay markaasi 48 saac ee la soo dhaafay ay la kulmeen weerarkii ugu cuslaa ee ka dhaca marinka Gaza. waxay soo taraya digniinaha loo jeedinayo dadka Falastiiniyiinta ee ku nool marinka Gaza. dhinaca kalena golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah ka yeelanaya xaaladda ka soo cusboonaatay marinka Gaza. Masar ayaa iyana waxa ay durba la yeelatay wada hadallo dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Jordan oo ku aadan bal xaysadda in la dejiyo. Sacuudi Carabiya waxay ku baaqday in colaadda degdeg loo joojiyo. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ka mid ah hogaamiyaasha ka hadlay Sabtidii waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay weerarada Xamaas ay ka wado dhinaca Israa'iil. tirada Falastiiniyiinta ee Gaza waxa wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadka dhintay ay kordheen 256 qof ayaa la sheegayaa in ay dhinteen 1800 oo kalena waa ay dhaawacmeen. dadka ku dhintay marinka Gaza waxa ku jira ilaa 20 caruur ah sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. ugu yaraan 120 qof ayaa dhaawacyo yaryar ay ka soo gaareen. dhinaca Israa'iilna 26 ugu yaraan askar ah ayaa la sheegayaa in la dilay oo Xamaas ay dileen iyadoo ugu yaraan 300 oo Israa'iiliyiin ay ku dhinteen sida warbaahinada gudaha ay ku warameen. sawirro ay baahiyeen dhinaca Falastiiniyiinta waxa ka muuqday maxaabiis iyo gaadiid dagaal oo ay qabsadeen. colaadan ka soo cusboonaatay marinka Gaza ayaa lagu soo waramayaa inay tahay tii ugu xumayd tan iyo markii duulaanka Israa'iil ay ka bilowday marinka Gaza. lama saadaalin karo sida xaaladda ay noqon karto laakiin Falastiiniyiintu waxay sheegeen in maxaabiista ay qabsadeen ay bilow u tahay sidii ay ugu bedelan lahaayeen maxaabiista laga haysto dhinaca Falastiiniyiinta. dhinaca kale madaxa xafiiska siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa ka warbixiyay howlgalladan cusub ee ka bilowday Gaza. howlgalkan oo loogu magac daray daadka Al-Aqsa ayaa bilowday subaxnimadii Sabtidii. ujeedkuna waxa uu yahay buu yiri in dhulka Falastiiniyiinta la xoreeyo gaar ahaan goobaha barakaysan ee uu ku jiro masjidka Al-Aqsa. Haniya oo jeediyay khudbad laga sii daayay telefishinka ayaa ku nuuxnuuxsaday hadafkooda in uu yahay inay xoreeyaan
dhulka Falastiiniyiinta gaar ahaan goobaha xurmada leh. Ismaaciil Haniya waxa uu ku eedeeyay Israa'iiliyiintu in ay markaasi dhagaha ka fureysteen in ay ka baaqsadaan goobaha cibaadada ah ee barakeysan ee ku yaala magaalada Qudus oo uu ka mid yahay Masjidka Al-Aqsa. Afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iilna waxa uu sheegay in weeraradan ku socda maalintii labaad inay yihiin kuwii ugu xoogganaa ee ay la kulmaan Israa'iil. Afhayeenkan waxa uu sheegay in Israa'iil ay la kulmayso maalin kale oo dhimashaduna ay badan tahay. waxa uu intaa ku daray in iska caabintu ay xoogsatay gaar ahaan marka loo eego aagga uu ku yaalo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa.